hani waxaa leeyahay hadalladaad hadda igula hadlayso kuwa horay aad ugu hadashay iyo kuwa kaloo suuragala inaad dib ugu hadli doonto dhammaantood waxa kaa keenay waad sixiran tahay waxa ku sixiray Kamaal ayaa la leeyahay maxaa ka jira arrimahaas horta Cabdisalaan ninkeyga ma ahan laakiin waa aqaana Cabdisalaan waayahay haniyey horay guur ma u soo martay wax caruurna ma leedahay hooyo ilmaheeda inkareys inay jirto uma maleynaayo haniyey aabaha oo Soomaaliya jooga sidee ku dhacday in qof kale intaad wakiilato uu Kamaal Cabdul kugu meheriyo حتى عبد السلام هدان حاس كيسرون أهان لها أما نين أن كلا تجنأ أهالها ما أملينا إنه صاص يعيبين لها هني ما واحد إلى هاي جبدي النجمة هيد وأنا عد كذا دقيستي يدرين كي يكون ليسو أنا يقول مدلين بل هني إلهي بنكو دار شيء وحل اللي هاي أرين كان بخل كيبا سجاشن سجال وصح أديكونه وضفريسا بل هدي أيامها سيد عضو مقلدة سبيرة سلكينا ما عدينيسا إن وركعت شيء وبين هاي عبد السلام وكاسحيه ورهاني أنت أي سفر يساتو ما يترادو نكاس وان استقبني عرور تاسينا وان دلي وانا كلاتكني حدنا وحن استقبنا كمال عبدل بل ساس كمو وناكسنين وهدي أي بواحد جيران إنا تسيدا وعديس هني الله تعالى وبركاته مدنياشي مروهين كمرتي شرف كماموس كبدن ميل والبو الدنيا كجوكتان وقتي يوايو هيدين وعنادو كسو دوادا أدنى channel iyo barnaamij gaar ah barnaamijkeena gaarka waxa uu ku saabsan yahay gabar baraha bulshada qabsatay oo dood aad u badan ka dhex dhalatay arimaheeda ayaan waxa noo suura gashay in aan raadino kadibna uu alla nahalelsiyo gabadhaasi oo lagu magacaabo Hani ayaa streamka Adna channel hadeer si toos ah ugu jirto waxaana weydiin doonaa su'aalaha bulshada saameynta ku yeeshay oo ay dadku isla dhaxmarayeen iyo waliba waxyaabo kale oo aad u fara badan bal marka hore iyada aan soo dhaweeyo walaashay soo dhawow walaalkeen waaya in kastoo aan garanay magacaaga hadana waxaan rabaa inaan bulshada u sii xaqiijiyo magacaaga oo saddexan Hani Muumin Maxamed waaya Hani Muumin xagee ku dhalatay xagee ku soo barbaartay ani waxaan ku dhashay degmada Xamarweyne waxaan ku soo barbaaray xaafad Loosoos waaya goorma aad Sweden marka oo aad haddan joogto 2019 2019 يعني 2019 waaw macnaheedu tahay waxa halka joogtaa 13 sano صح waayahay haniyay horay guur ma u soo martay wax caruurna ma leedahay may wax caruurna ma leeyahay guurna ma soo maray markii laga reebo kan hadda Kamaal Cabdul yaadiga waayahay baraha bulshada sidaad la socotid waxa qabsaday arimo adigu kula xiriira oo la leeyahay gabadhan horay ayay ilmo u soo dhashay nin ayaana haatan qabo 8 caruur ayay soo dhashay 5 ayay haysataa guurkii ay guursatay Kamaal waa baatil arimahaas adigu ma aragtay marka hore si fiican horta u arkay arimahaas inta badan inaan ka hadlana ma rabin horta hore uga hadlay marka maadaama ay hadda qasab igu noqotay inaan hadana warbixintan aan bixiyo maadaama adi ila soo xiriirtay familkayga qaarna ay dhaheen arintan ka har anaga ku jirna saas daraadeed marka zaaid aan u maqlay arin idibta zaaid idibtana way ahayd waayahay marka waayo Cabdisalaan ma ninkaaga oo 8 caruur aad u dhashay laakiin 5 haatan ay joogaan ma sataqana Cabdisalaan qofku uu yahay horta Cabdisalaan ninkeyga ma ahan laakiin waa aqaana Cabdisalaan waxaan ku aqaanaa horta waa qofkii wadanka Sweden keenay ciyaalkaas asaga uu dhalayna ana u keenay liano waa ogtahay qofka laynka waa la isdhaafsadaa marka maadaama asaga oo ilmo haystay anigana aan layn u baahnaa ilmaha aniga soo waday markaas anigoo wali markaas zaaid u yar marka ilmihii iyo aniga isku sidii aan u nimid wadanka Sweden waayahay markaad Sweden tagtay muddo intee leeg ayaad wada joogteen wax badan ma wada joogin asagana kulay guriga deganaa anigana guriyaan deganaa inta badan marka waa saas laakiin qof walaalkay ah oo xiriir yani walaaltinimo naga dhaxeeyo oo ilmaha caawiso intaas oo dhan aniga waa ahaa waayahay haddii aad ahayd qof walaal aad u ahayd ilmahana aad caawin jirtay isagana uu yiri waa xaaskayga 8 caruur ay dhashay Soomaaliya ayaanba ku qabay sidee loo xalinayaa marka farqiga gaabka ay labadiin idin dhaxeeyay
horta farqigaas horta waa mid dadka bulshada aad u wareeriyay anigan hani ay haysato xataa ku wareeray marka waxaa noqonaysaa inaan taas ku xalino kolley anaga waddan sharci lahaa joognaa waddankaas waa inaan asagana uu dacwo tago anigana aan dacwo tago horta hooyo ilmaheeda inkaraysa inay jirto uma malaynaayo anigana kamaal waa u sheegi lahaa haddii aan ilmahaas ilmaa dhalihi lahaa ama wuu igu qaadan lahaa ama wuu iiga tegi lahaa marka kamaalna ma aha nin lacag badan oo aniga aan lacag u xilanaayo maanta oo aan isdhahayo qofkaanistu jaanisa kugu dhaafaayo marka ma u malaynaayo inaan saas samaynayo qof nin qabana ilama ahan kamaal iyo aniga muddaa issukaansanayna u malaynaya intaa issukaansanayna habeen walba waan isla hadli jirnay asagaba wuu ogyahay hadduu hal mar xataa uu arkay nin ama ilmo waayahay laakiin wuxuu yidhi sanadkii ugu dambeeyey cabdisalaan waxay la soo baxday weji cusub oo xaafadda badanaa maba jooginba marka taa ma la dhihi karaa sanadkii aad shukaansanaysay kamaal wuxuu ahaa sanadkii aad guriga ka maqnayd wallaahi taas lama dhihi karo aniga qof shaqeeya ahay oo la og yahay maalin walba shaqeeya oo hal maalinna aana guriga joogin bulshadoo dhanna ay og tahay marka taas waxaan dhihi karaa waa been kamaal ka horna aniga sidii aan hore u sheegaga wiilala issukaansan jirnay kamaal ka hor dada yaqaanay ani kolley qof Instagram wax badan ku jirta ahay maadaama ciwaanadeedii la jabsaday marka saas eed live geli jiray tartamaan ka qayb geli jiray tartan aqooneed oo kale todo qof si fiican loo yaqaanaa qof gabanaysa ma ahayn waayahay haniye ma waxaad leedahay gabadhii najma ahayd oo aan codkeeda dhageystay iyo dareenkay ku hadlayso anigu ma dhalin saas waaye najmo haddii aan aniga qofka ciwaankayga hadda jabiyey Instagram-ka jabsaday horta aniga iyo najmo dad waxaan ahayn meel iskula nool marka qofka Instagram-kayga jabiyey oo email-kayga jabiyey horta waa najmo ma u malaynayo cunug inuu jiro hooyadiis email-kiisa jabinayo rabana inuu ceebaysto xataa cabdisalaan haddaan xaaskiisa runa ahaan lahaa ama nin aan kala tagno uu ahaa lahaa ma u malaynayo inuu saas ii ceebayn lahaa waayahay najmo waxaad dhahday waxaan ahayn dad meel wada joogo bal ii sharax maxaad ula jeedaa aniga iyo najmo isku meel aan deganayn macnaha dad kala shakin kara ma ahayn najmo waa qof weyn anigana qof weyna ahay maadaama anaga aan markii horeetaba isla joognay dad isla yimid aan nahay hadda dad wax u kala baxsan yihiin ma ahayn saas daraaddeeda keentay in email-kayga uu saas ku jabo waayahay maxaa ku jabsato ayada waa gartay maxaa sababa marka in cabdisalaan iyo caruurtiisa dhammaantood inta meel ay soo fadhiistaan yidhaahdaan hani waa xaaskayga hani waa hooyadee dalkay ka leeyihiin maxay tahay wallaahi ma fahmi karo horta caruurta horta waa caruur fiican laakiin aniga waxaan qabaa inuu aabahood bedelay adigu ma wax xiriir ayaa kaala dhexeeyay waxaad sheegtay inuu yahay qofkii kusoo waday markuu kusoo waday kadib ma xiriir baa kaala dhexeeyay cabdisalaan may xiriir igama dhexaynin laakiin xaaladoo dhanba waxay timid markii xataa meherkii markuu jiray xataa qofka ugu horeeyay oo sawirka meherka iga qaado wuxuu ahaa sawirka aad meherka ood aragtay oo kamaal meeshiisa uu soo saartay oo ii xiran yahay maalinkii meherka boorka xataa lagu soo dhejiyey aniga qofka iga qaado wuxuu ahaa najmo oo mobilka ay iga qaada ya markaas najma ayaad wada joogteen Sweden adigoo joogta ay sawirkaas ka aniga iyo najma maal anaa ka dalbaday inay sawirkaas iga qaado maadaama sawir meherka aan u baahanahay waa gartay marka waxaa jira warar kale oo sheegaya in meherkii ka dhacay Afgooye wadaadkii adigu ku matalayay oo aad sheegteen inuu aabaha ahaa in uusan aabaha ahayno uu mala awaal ahaa bal arrinka maxaad ka leedahay horta arrintaas horta waa qalad inay saas yidhaahdaan horta aabahay ma ahayn waa run laakiin wuxuu ahaa qof aniga isoo korsaday oo ilaa yaraantayda ila socday marka arrinta aabahay iyo anigana aaday meesha la iiga faa'iidaystaba horta waa meeshaas oo yacni mar walba la iigu hanjabi jiray marka arrinta aniga iyo aabahayna waa arrin si kareeda oo ma raba inaan hadda social media keeno haddii aan sheekadaas ka sheekeeyana waxay noqonaysaa mawduuc cusub bal haniye ilaahay baan kugu dhaarshay waxaa la leeyahay arrinkan boqolkiiba 99 waa sax adiguna waad dafiraysaa maxaad is leedahay arrinkan cadeyntiisa waa la keeni karaa markii laga soo tago maxkamadda aad tiri waddan sharci leh ayaan joogaa soo hooyada iyo aabaha ma joogaan oo arrinkan cadeyn kara
ها والدكي هذا عاوة قدام بيسي والدين تقارو حي أقول هذا إنك استو أيها كاميرات أي جعلان مركب سيد أبو نقصيها بدنا أيها ويكسرها بلي دونا